السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Gari Global Network. Maanta waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan ardayda gobolka Daawa iyo dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Warbixintuna waxaa noo diyaariyay walaalkeena Baganaale. Warbixintuna waa sidatan dhageysi wacan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ويدين سلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الله سلام بعدي وحن ربعنا الكان ذي وضعه وربحين كسابسن اسمام الكسومالي ده قاسة كل الكين نشنات سيدا انتي نبض الله سعوته وحاجر تبريهان أمر كسو بحي دولة دحي هنا كسابسن أرضي ده فصل كلابي توبنات أما ماركتي دوكسيغا سري سيدا دادك انت ودا بدانوية خانان أرضي داسي waxaa nagu maqaalay in prime minister amar uu bixiyay in nin walba ama gobol walba ama region walba ay maaragtay imtixaanka ay ku qaadan doonaan jaamacadooyinka ku yaala goboladaasi ama regionkaasi ama kililkaasi sida intii badan la socoto kililkeenu wuxuu leeyahay laba jaamacadood qura hadii lagu daro jaamacadda Dirdhawa oo jaamacadda saddexaad waxaad ogtiin gobollo qaar oo aad uga fog oo Dirdhawa ama maaragtay Qabri Dahar goboladaasi waxaa kamid ah gobolka Daawa iyo gobolladii kale sida gobolka Liibaan ama gobolka maaragtay Afdheer goboladaasi dawladdu hadii ay nidaamka hore jiray hadii ay bedesho waxa la rabaa inay nidaam oo sida la mid ah ummadaasi ay ugu talagashay inay maaragtay ay keenaan hadda waxa la yiri imtixaanka laguma qaadan karo dugsiyasha ilmahaas ay ka soo baxeen waxa lagu qaadanayaa jaamacadooyinkaasi midna kuma soo dhawo gobolka Daawa si dadka imadaasi iskuulkaasi dhigta ama maaragtay ardaydaasi isku mid maaha qaarkoodii waxba haystaan qaarna waxba ma haystaan hadii dawladdu ay bedesho nidaamka hore oo jiray waa inay sida ilmahaasi imtixaanka isku qaadan lahaayeen hadday transportation ahaan leed iyo hadday wax kale la mid ahaan leed waa inay u diyaariyaan hadday iyagu u diyaarin ilmahaasi sidee bay u tagayaan jijiga sidee bay u tagayaan Qabri Dahar ama sidee bay u tagayaan Dirdhawa waxaasi nasiib daraa inaan dawladda waxaas oo dhan aan u diyaarin waxaanu laga soo gaaray gobolka Daawa inay dawladdu uusan ku talagelin wax ilmahaasi lagu qaadi lahaa hadday transportation tahay hadday wax cunaan ay tahay hatta ma ayna u diyaarin meel imtixaan ku qaadanayaan waxa nagu maqaalay in ilmahaasi loo qaaday dhinaca maaragtay awaasana waad ogtihiin inay uusan joogin qof Soomaaliya ama uusan ka tirsaneen kililka shanaad hadii aad ogtahay inausan jirin ilmahaasi way meel aan imtixaan ku qaadanayaan maxaad ugu diyaarin weyse facility oo ay maaragtay oo ay ku qaadan lahaayeen si waxa kale nagu maqaalaa in ilmahaasi laga aruuriyay lacagtii lagu qaadayo haasatan gobolka Daawa oo dadka masaakiinta muddo 2 sano ama 3 sano abaartu haysatay xoreena haysteen xooluhuna ay ka dhamaadeen aan haysanin wax ilmahaasi bas ku saaranayaan runtii arrin aad u foolxun waxaanu leenahay dawladda dhexe ama dawladda kililka shanaad dhibaatadaasi maxaa sababay inay u geysataan ummad ilmahaasi waxaan ugu maqaalay in 600 la qaaday 600 dambena ay maaragtay la way wax lagu qaado aabiyaashooduna soo waxba haysan oo ahaayeen dad masaakiina hadii awal xoolo iibsan jireen xoolo haysanin hadii awal maaragtay meel kale wax ka keenay oo sameeyay wax ka keenay oo san jirin marka sidaas darteed madaxweynaha arrinkan sidoo uu ku sameeyay hadii prime minister ku amar ku soo bixiyo uu yiraahdo systemka bedel inuu ka qaataba maahan hadduu ka qaatayse waa inuu ummadaasi u fududeeyaa sida ay ku imtixaankaas ku qaadan lahaayeen waxaad ogtihiin amaan ognahay in maanta ardaydaasi ay ku jirtay jaamacadda Awaasa waxaan ugu maqalay waxa cunaan oo sanaysan ummadda waxa cunaan oo haysan sidee bay imtixaan ku galayaan ilaa nin calooshis ka fikiray goorma imtixaanka galaya goorma uu noqonaya qof paas ama maaragtay oo horumar sameeyna marka sidaas darteed
dowladda waxaanu leenahay hadduu jiro wasiirka waxbarashada ama ninka caafiska waxbarashada hadduu yahay kan kililka jooga iyo meelu joogaba in wax laga qabto waayo dhibaato intaas leeg ummadda intaas leeg ayuu dhibaato ku sameeyey una dhibay una waxba isagoo waxba ugu talagelin ku talagalaan bay noqotay haddii hadda ilmahaasi aanan buundo fiican keenin waxa sabab u ah kililka shanaad marka sidaas darteed dowladdu waxyaabaha ay ummaddaas ku hayso waa inay ka joojiso ayaanu leenahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق. بقى وباقنا